ninkii xoolo lagu arko xoolihiisa waa la canshuuri ama ma birson talageen ama masaakiima loo qaybin ama waa la gadi saddexda shay ba maartay waxaan ku suganahay xafiiska maamulka gudaha magaalada Tangaarisa ee loo yaqaano municipality-ga oo muddooyinkii la soo dhaafay waday dadaalo wax looga qabanayo tayada bilicda magaalada Tangaarisa oo xarun u ah dawlad deegaanka Tangaarisa haddaba iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana waxaa la ogyahay lo'da inay dhibaato far badan ay ku hayso magaalada mararka qaar ay samayso amaba ay keento shilalka dhibaatooyin ka soo gaarayaan bulshada in ay caqabad ku tahay ganacsatada suuqa gaar ahaan qudaarta iyo nadaafad darro oo kale oo ay u keenayso gudaha magaalada waxaana socday labadii sano ee la soo dhaafay dadaalo ay arrintaas wax looga qabanayo oo uu waday madaxa maamulka horumarinta gudaha magaalada Tangaarisa ee municipality-ga loo yaqaano mudane Maxamed Xasan Usmaan haddaba iyadoo taasi ay jirto ayaa haddana waxaa soo noqnoqonaya kiisaska ah in dadka markii lo'dooda laga qabto la ganaaxo haddana dib ay ugu soo laabanayso suuqa magaalada Tangaarisa iyadoona sidoo kale ay cariiri ku tahay gudaha magaalada waxaana jira tallaabo ay iska kaashanayaan xukuumadda dhexe iyo waliba sidoo kale xukuumadda ismaamulka Tangaarisa gaar ahaan laanta horumarinta ee gudaha magaalada Tangaarisa ee municipality-ga loo yaqaano si aan wax uga ogaano arrintaasi ayaan wax ka weydiinay agaasimaha maamulka ee gudaha magaalada Tangaarisa mudane Maxamed Xasan Usmaan oo aan xafiiskiisa ay ku soo booqanay Maxamed adigoo mahadsan marka hore bal waxaad ka warantaa tallaabooyinka cusub aad dejiseen iyo waliba go'aanada aad qaadateen iyo in uu xakameyn karo bal marka hore oo cusub oo aad la wadaagayso bulshada magaalada bismillaahir rahmaanir rahiim cabdiqani iyo horta ku soo dhawow xafiiska Garissa municipality hadda iyo mar kale ku soo dhawow wasaad u sheegtay muddo ayaan ku dhex jirnay loodan oo ma aragtay magaalada aad u wareerisay gaadiidka oo ka sheeganayso ummadii ma aragtay ganacsadayaasha oo ka sheeganayaan oo ma aragtay dhibaato badan ay magaalada ku hayso marka hadda labada week hadda ugu dambeysay way soo bateen labada saad u aragtay tiradeeda way soo bateen marka waxaan bilownay operation 91 operation ku bilownay inaan ma aragtay looda aan ururino anako sharciga county government act iyo national laws isku isticmaalayna ayaan la fadhiisanay ma aragtay qolada ma aragtay loo yaqaan xafiiska loo yaqaan sidii luqadda Ingiriiska Office of the Deputy Director Office of the ODPP Director of Public Prosecution marka waan la fadhiisanay sharciyihii baan tusnay aan haysana kan county iyo kan national government ka marka taladii baan isku darsanay waxay dhaheen ummadda markan ummadda waa ummadda reer Garissa ummadana waxaa waaye ummadda wax saa u sii garana ma aha marka adiga taladii waa maxaa tala ka soo baxday meesha inaan diversion agreement wax loo inaan hagaajino xafiiska DPP iyo xafiiska municipality diversion agreement kaas waxa way inta balan kootiri dadkan aan geynin bal aan siino bal mid ugu dambeysay warning ugu dambeysay aan siino diversion kaas markaan waxaan sameynay agreement baan la qornay anakii xafiiska ODPP iyo ayag marka xafiiska ay labada xafiis ay fadhiisteen agreement aan wada galnay waxaan ku gaarnay agreement diversion agreement ma aragtay inaan dadkan bal inaan warning ugu dambe aan siino diversion agreement ka marka waxa ku qoran loodaada hadii mar asayn gareyso oo dhahda markan hadda ugu dambeysay hal igu fayn gareeyo magaaladan waan kala bixi hadii lagu arko haweeney dhaara iyadoo loo wareegayso inay loo dawladda iska leedahay oo la cashuuri oo dawladda ma kootini lageyn dawladda marka wax xirtay ku sameyn haday masaakiima u qaybin haday gadi iyo haday macbuusta lageyn sidii dawladda marka ay ku go'aamis ayaa ku qoran marka ummadda reer Garissa waxaan u sheegayaa horta arinta wixii hore oo municipality intaan iska aruurinay anaka xoolaha ma aragtay aan geynaynay ma aragtay barasa bag mise showground loo yaqaan aan geynaynay oo aan tan cashuurno iska sii daynay sheekada ma tagin way dhamaatay hawartay iyo ilmaadeernimo way dhamaatay hadda waxa waaye national government security-gana waan engage garin hadda saad u ogtiin hadda marka looda u tagtiin police ba ilaalinaysa waxa ma gaajo intaad u maatiin aad la dagaalaysan wuxuu ku qaadanaysan sheekada way dhamaatay because loodan adiga ku ficneen anaka inoo ficneen ummadda idilba u ficneen ayada dhibaatada kale aan la kulmana oo markaad loodan aad xareysana horta masaakiin horta ku digayna masaakiinana wala si kala liitaan laakiin liitaanka aad liidato macna masaakiinimada inaad dadka maanta aad ku imaad aad ku dhibto laga fiican loodan hadda maanta ilaa shalay xafiiskayga waxay u imaaneen dad tawar aad u yar oo badigoodan agooma ah marka waxaan rabaa inikan ummadda ilaalinaysiin magaaladan ilaalinaysiin waa sax yatiimaha haysiin ilma agooma korinaysiin waxaa laga yaabaa xoolaha in agooma iska leeyihiin laakiin xoolaha agoomaha waxaana ka sii fiicnaan lahayd xoolihii agoomaha inkoo ilaalinaysin inaad meesha lagu talagala daaqsigeeda in la geeyo ma aha in magaalo lagu sii daayo oo ma artay ummadda lagu dhigo because
ilmaha aad ku korinaysa mise xoolaha aad rabto inaad maaragtay ilmaha ay kuu fiicnaadaan waxaa kasii fiicnaan lahayd inaad sidii meesha lagu talagalay inaad geyso duurkii lagu talagalay mise baadiyihii mise magaalada ama baaxida inaad geyso maaha inaad magaalada aad kusoo dirto oo magaalada aad kusoo sidayso gawaaridii iyo ummadii meel ay mari lahayd iska fadhiisanaysaa dadkii ganacsatayaashana ay xoolahooda ma aragtay maanta ay ka cunayso markii saa ay usoo jeedsadaan bilcaama ay ka soo cunayaan marka waxaan rabaa anigoo nin naxariisanayno oo dadkayna aad tihiin oo ummadda ma aragtay inaanan dhibin aan rabin ininkana naftirkiina magaalada u tura magaalada waa la wada leeyahay anaga shaqaali baanaan adeegii baan ii hayna ininkana ummadii baa tihiin marka waxaan markaan nii qabano aan looda qabano agooma iyo masaakiima aad nagu soo ordaysiin naga daaya waa naga xishoona weliba bilcaamaha weliba maamayaalka xafiiska igu imaanaan waa naga xishoonayna intaan naga xishoon karo laakiin waxaa waaye safartan ha noqoto midii ugu dambeysay mar dambey hataadna saan garayso foomkaas anigu garta maxamed marka sharcigan cusub muxuu kaga bedelnaan doonaa kuwii hore ma yahay mid xakameyn kara horumarinta bilicda magaalada ama looda ka xakameyn kara kan wuxuu uga bedelan yahay waa saan horaan u sheegay horaan xafiiskaygii iyo anakii iyo dadkii xoolaha lahayn baan agreement samayn jirnay laakiin kan hadda uu naga duwan yahay qolada ma aragtay oo prosecutionka loo yaqaano oo ma aragtay dowladda ma aragtay ay independent u tahay oo dadka rabo inay kootinay geeyaan ayaan la tashanay waxaan dhahnay xoolihii wayna dhiwan way soo noqdeen marka waxaan rabnaa haddaad xafiis tihiin oo ma aragtay public prosecution ininka aad samaynaysiin dadkii markaan soo qaban inaan kootina noo geysan hadda maalin hore markaan looda aruurin hadalka adaa wadatay waan ka iloowe laba nin baana la dagaleen labada nin hadda kootina way diyaar u yihiin faylkooda isniintii baa la geynaya hadda bond way ku joogaan laakiin aniga waan soo record garay settlement enforcement headkana soo record waana la istaagayna incitement iyo loodii xoolihii aan ka ma aragtay yaa laga wadi waayey ummadii bay nagu direen marka askartii baana saacidaysay nimanka waan qaban hadda 3 nin baan bond nagu joogaan oo ma aragtay aan kootiniga diyaar u nahay marka hadda midan waxay ku duwan tahay cabdiqani oo saa sheegtay waxay ku duwan tahay foomkan markaad kor ka aragto foomka waxaan rabaa inaad ummadda ma aragtay la sheegarayso waxaa kor ka qoran office of the director of public prosecution agreementkaas asagana oo ku jira anna waan ku jirnaa head of enforcement iyo ninkii xoolaha iska lahaa marka waa full agreement oo meesha ku dhacay horaan laanta waxaa waay laanta ma aragtay dacwada sooginta marka waxaana ku qoran haddii mar dambe lagu arkay marka ayag maadaama hadda ugu horeyso waxay dhan ayag naga codsadeen intaan koontiina dadka aan geyn lahayn waxaa ka fiicnaan lahayd bal warning ugu dambe nasiya marka waxay dhan bal anakana dowsifay noo dhihin horaan nimini sheegin warningan ugu dambe ma aragtay wayna la qabsadeen waxay dhaheen diversionkan anakaan nala qabsanayna bal aan siino ummadii aan ma aragtay u digno agreementkaasna ayagoo saxiixayaan aan ka saxiixano kibaanoodana ku dhajiyaan hadhow haddii lacalla aan ku geyno kootiniga sifay u dhihin walaalow nafaas maxaad noo siin waysa mise maxaad dadka nugu ogeysiin waysa sifay noo dhihin yay dhaheen safarta mid ugu dambaysa aan ku sameyn tusaale aan loodaada hadda la iga qabsaday waxaa iga qabsaday ciidanka municipality-ga iyo kadib waxaa la geeyey bal sharax bal looda hadda markaad aan qabanay waxaan ku xaraynay meel jan loo yaqaano Barazabak showground nin booliis baa jooga meejaas foom yaalo oo aad buuxinay magacaaga lagu buuxinayo looda wixii lagu soo qabtay iyo dhibaatada meesha jidkii laga soo qabtay location aad ka imaatay iyo inaad ogolaatay mar dambe haddii magaaladan in lagu arkayn yaad ku qoran marka waxaa kaloo ku qoran looda haweeney dhaar inay magaalada lagu arki karin looda haddii mar dambe lagu arko inaad ka dawo imaan karin yaa ku qoran marka ninka saad u sheegtay public prosecutor-ga wuu sayngareen head of enforcement wuu sayngareen adigana waad sayngareen oo consent-ka adaa iskale waad ogolaatay inay mar dambe xoolahaada lagu arkin anagana municipality-gana anigoo manager-ga anaga waan sayngareen faylka asaga ahaa waan fayl gareynaynaa copyna municipal alaari copyna xafiiska DPP-ga alaari loodii saa kuma harayna markaan loodii eegan dadka iska lahaa aan siino oo aan cashurno waan haddana operationka waan bilaabaynaa loodii lagu arka magaalada dee ilaa shalay baan kusii dayno oo aan naga sayngarastay oo form aan kaa sayngarayna haddii la qabto haddii markaa la kootini markaad imaato looda soo raadsato dhab baan kusiina iyo loodaan isku hageynayna kootiniga marka sheeko kale ma jirto laakiin waxaa waaye hadda waa warninka ugu dambeysay hadda warninka ugu dambeysay waaye waa laga sayngareen waana lagu canshuuri bilaashna laguma sii daynaya looda waa lagu canshuuri waana 1,000 shilin per head iyo daily charge storage ilan hadda meesha waxaan coos iyo biyo iyo waan siinaynaa daily storage iyo wixii ku dib maartay waan qarashkii anaka hadda bixinayna laakiin dadkii waa laga qaaday marka haddii 5 maalin ba 5 maanta la 4 soo ninkii haddii 5 maalin ku gaar 1,000 shilin buu bixin ninkii 4 maalin 8 maalin ninkii shalay baxsadana 600 shilin buu bixin yoomkii waa 200 shilin marka ummadda waxaa rabaa inaan u weysiiyo arrintii hore ma aha loodan way soo badatay magaalada hadda waxaan u malayn qariiban hadda saacadan aan kula hadlay 240 xoolaan xarayn
laba boqol iyo afartan magaalada ka waran oo jidkan ma aragtay Kismaayo ilaa iyo Lamu Road loo yaqaan ilaa iyo AB-da gadaasheeda ilaa Ngameru waa intaas lagama soo qabanin meelaha tuulaasha ma aragtay wariyaash Waaberi iyo galbeedka hoose iyo iftiinta hoose maana garan waa CBD wixii loo yaqaan Central Business District loo yaqaan ka soo qaban marka ummadda waxaan u sheegaynaa ummaddan xoolo iyo magaalo isma qaadanayso xoolo iyo magaalo meel ma gelayso ama xoolihii magaalada aan u dayna magaalada aan ka gurunana ama magaalada xoolihiina qabsada waana markii ugu dambeysay maanta maxaa imaatay maama hooyada la eg waan ka xishooday waan u sheegay waana ka sayngareeyay kitaab quraan bay in martay waxaan rabaa say kitaabka quraanka u martay inay xoolaheed mar dambe ugu maanin inay uga dhamayso magaaladan waxaan rabnaa free movement of animals inaan ka ilaalino xoolahan magaalada lagu soo sidaynay haddaad xoolo soo gadanayso xoolaha meesha koromodika horkeeda ge cid kula haysta ma jirte soo daaqi markay xogo ku koraan masaadi kale adig guriga ku xirnaadaan soo imo suuqa waaqad wasaqdi iyo chaafigi iyo viazigi iyo ma artay wixii ma artay ka qaado uge gurigaada laakiin ummadda ku soo dhibin ummadda ku dhibin darad nin bay tugtugiisa ku dhacday yaa ilaahay yaa u maqan ilaahay aan keen intuu nagu imaado maxaan ku sameynaa ku yiri right nu leeyahay inuu adinka qabsaninka marka waxay la badan baan la kulmnay dadkii markii lagu dhaco anakii baan loo imaanay anakii dhibaato badan dhowr jeer baan lagu dilay askarteedii lagu dilay marka laakiin hadda waxa waaye dawladda naftarkeeda horaan wixii ahayd ba municipal kix loo maleeyay hadda ummadii iyo magaaladii iyo national government ku dib asla aragtay marka xoolaha hadda waxa waaye magaaladan waa say xoolaha hadda aan uga masafrin ninkii xoolo lagu arko xoolihiisa waa la canshuuri ama ma birson talagin ama masaakiin loo qaybin ama waa la gadi saddexda shay ba ma aragtay yaa go'aanka anaka aan ku gaarnay